kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalkii dibadda naga soo gaadhay qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysan waxa kamid ah ilaalada xeebaha ayaa maanta u dabaaldegay xuska maalinta la aasaasay ee ciidanka uu ka soo wareegtay muddo haatan laga joogo 6 sano qodobkaasi ayaa daawadayaal warka caawa ugu door karaan imikana waxa aad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta waxay u dabaaldegeen xuska maalinta la aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Djibouti oo 6 sano ay ka soo wareegtay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta guddoomiyay munaasabadda ballaaran ee loogu talagalay ama loo asteeyay xuska maalinta ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Djibouti taas oo ka soo wareegtay hadda 6 sano munaasabadda xuska ee dhalashada hay'adaasi ballaaran ee ka howlgasha ilaalada xeebaha ayaa waxa uu joogay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Mudane Maxamed Cabdulqaadir Boose Xereem taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida Zakariya Sheekh Ibraahim madaxa amniga qaranka Xasan Saciid Khayre iyo marti sharaf aad isku ballaaran oo iskugu jirta mas'uuliyiin sare oo iskugu jiray iyo military iyo safiirada dalalka aan saaxiibka nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa waxa halkaasi diran ugu soo dhaweeyay xarunta dhexe ee ciidanka ilaalada xeebaha wasiirka qaabilsan gaadiidka iyo qalabaynta iyo sidoo kale taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Wacays Cumar Boqore oo weheliyo wasiirkaasi gaadiidka kulankaasi ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda ee loogu talagalay maalinta ciidanka ilaalada xeebaha ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi heer sare ah taas oo hadda ka soo wareegtay 6 sano tan iyo markii la aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Djibouti oo iyagu u qaabilsan sugidda ammaanka waxaana waxtarka iyo waxqabadka awoodda qalabeed ee ciidankaasi ay xoogeysteen sanadihii ugu dambeeyay kadib markii ay qaadeen howlgallo ballaaran oo loogu talagalay sidii ay u xoojin lahaayeen adeegyada kala duwan ee ku aadan sugidda ammaanka waxaana ciidamada ilaalada xeebuhu ay yihiin kuwa ka dhashay rabitaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda ee ku aadan horumarinta waaxdaasi lagu sugayo ammaanka waxaana ay iskaashi buuxa ay wadaagaan dalalka Mareykanka midowga reer Yurub iyo waliba Sacuudi Carabiya oo inta ugu dambeeyay u fidiyay adeegyo aad u fara badan taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqore oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadaasi ballaaran ee 6 sano ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka qayb gashay munaasabadda xuska dhalashada ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Djibouti. Au moment où nous abordons notre 6e année d'existence, la garde des côtes est félicitée d'avoir atteint des objectifs notables malgré le peu d'équipement et l'insuffisance du capital humain. En termes de missions confiées à la garde des côtes djiboutienne, il est important ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqore waxa uu ka hadlay ahmiyadda munaasabadan ee xuska ay u leedahay ee ku aadan qabanqaabada iyo waliba kaalingelinta ilaalada xeebaha Maxamuud Cusmaan ayaa ka waramaya. Au moment où nous abordons waxa uu sheegay inuu mahadnaq ballaaran u soo jeedinayo sida wanaagsan ay uga qayb qaateen xuska maalintani oo ay ka soo wareegtay 6 sano asaaskii ciidanka ilaalada xeebaha dalka taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha waxa uu sheegay in ciidanka ilaalada xeebaha loogu talagalay inay si dhaba uga shaqeeyaan ababa uga jawaabaan baahida kala duwan ee badaha gaar ahaan adkeynta nabadgelyada iyo xaqiijinta xasilloonida iyagoo laga hortagayo wax waliba oo khalkhal gelinaya badaheena waxa uu yiri amurahaasi waxaan ka soo hoynay guulo tiro badan oo la taabanayo waqtigan oo ciidanka jiro iyo dadaalada aan hagar la'aanta lahayn ay ugu jiraan xaqiijinta ujeedada loo aasaasay waxaana oran karaa inuu joogo ciidanka heerkii ugu wanaagsanaa taasi oo ay dhab uga mahad celinayaan xukuumadda uu hormuudka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo si dhab ah uga go'an tahay isku haleynta badaheena waxa kale oo aan doonayaa inaan uga mahad celiyo dhammaan saaxiibadeena iskaashiga iyo wax wada qabsi ee mar waliba taageerada inala garab taagan haday noqoto tababarada iyo qalabsiinta intaba si gaar ah waxaan uga mahad celinayaa saaxiibada kala Japan midowga Yurub Mareykanka Sacuudiga iyo Qatar intaba wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Mudane Maxamed Cabdulqaadir Muuse oo isaguna ka hadlay munaasabadda ballaaran ee xuska maalinta dhismaha ciidamada ilaalada xeebaha waxa uu ka hadlay kaalinta ciidamadu ay ka galeen ilaalada iyo nabadgelyada xeebaha waa kan markale Maxamed Cusmaan. République de Djibouti a pris sa part farxad gaar ah ayay tahay inaan maanta idin kala qayb qaato
waxaan aad ugu faraxsanahay howlkarnimada iyo dhiirinaanta waxqabadka hubanay ciidanka ilaalada xeebuhu anigoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan jeclahay inaan ugu hambaliyo sida wanaagsan ee hore ugu dhaqdhaqaaqa leh iyaga oo maanta laga joogo 6 sano oo kaliya asaaskoogii waxaa farxad sarafi ku laran tahay inaan si diiran ugu soo dhaweeyo horumarka ballaaran ee hay'adda ilaalada xeebuhu ku tallaabsatay muddo imika jirta 6 sano oo ah kolka loo eego waxyaabaha ay qabatay ee ballaaran ee tis qaaday ciidanka ilaalada xeebuhu waa hawl badan yihiin amniga badaha oo ay xukuumaddu u dooratay inay si wanaagsan oo cilmiyeysan uga jawaabaan amni darrada iyo xasilooni darrada ka jirta gacanka cadmeed taasi oo haddii wax laga qaban waayo way qaysa dhaqaalaha qaran iyo midka gobolka waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo dhammaan saaxiibada iskaashiga horumarineed ee suurageliya adkeynta iyo awoodsiinta teeraysa howlgalka ciidanka ilaalada xeebaha ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed khudbadda uu ka jeediyey munaasabadda xuska aasaaska gaardikoodka waxaa ugu horeyn uu soo dhaweeyey natiijada wanaagsan ee laga hayo dadaalkan loo kala hadhin buu yidhi ee awoodsiinta howlgallada ilaalada xeebaha kaasi oo xilligan tis qaaday horumaray awood buuxana le buu yidhi waxaana ra-iisul wasaaraha hadaladiis ka mid ah C'est avec votre création que la surveillance et la protection de nos frontières maritimes ra-iisul wasaaruhu waxa uu yidhi farxad weyn ayay ii tahay inaan idinkala qayb qaato 6 sano guurada ilaalada xeebaha oo ah muddo yar hase yeeshee howlgalkiinu ka muuqdo in aad horeyba u sii jirteen waana soo dhaweynayaa horow socodkiina muuqda iyo korukaca awoodeed intaba buu yidhi waxaan halkan idinka sheegayaa dhammaantiin haddaad tihiin ilaalada xeebaha in kadib dhismaha hay-adina xukuumaddu si buuxda ugu kalsoon tahay nabadgelyada iyo ilaalada xeebaha waana farxad gaara in aan sidaasi ku hirgelino aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ee ah in dalku yeesho awood buuxda oo maxalli ah oo suuragelisa adkeynta xasiloonida badaheenna iyo weliba badaha danaha dhaqaale inagaga xidhan yahay annaga oo kala kaashanayna saaxiibadeen waxaa xusid mudan in dhaqaalaheenu uu si aada ugu tiirsan yahay ganacsiga soo mara badaha iyo boorarka taasi oo hubaal inoo midaysay dhammaantiin in aan meel uga soo wada jeedsano wax waliba oo amni darro badaya badaheenna waana ogahay mudane taliya in kadib kolka aad qabatay hogaanka ilaalada xeebaha in uu aada u xoogaystay tababar siinta ciidanka taasi oo aan mar kale kugu dhiirigelinayo in jidkaasi weli aad sii haysaan waayo howlkarnimada iyo waxqabadka ciidankaaga waxaa si hubaala idin dhaxal siinaysaa guul aad ka soo hoysaan hawsha laydin egmay waxaana maanta ku hubaal ah in aad haysaan awood iyo qalab intaba oo aad ka hesheen saaxiibada waxaana idiin suuro gelisay in si dhaqso badan uga jawaabtaan howlihiina kala duwan aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan kuna hadlaya magacayga gaarka iyo ka xukuumadda waxaan jeclahay in mar kale mahad gaar ah u celiyo dhammaan wadamada saaxiibka iyo walaalka ah ee taageerada inaga siiya dardargelinta waxqabadka ilaalada xeebaha saaxiibadeena caalamka sida Japan, Mareykanka, Midowga Yurub, Shiinaha, Sacuudi Carabiya iyo qaar kale oo badan waxaan uga mahad celinayaa taageerada ay mar walba la garab joogaan ciidankeena ilaalada xeebaha waxaan idin rajaynayaa guul iyo weliba in aad ku dhiiranaantaan ilaalada xuquuqaha bini'aadmiga xilligan oo uu si tiro badanayo tahriibka iyo magafuhu oo intuba xadgudub ku ah xuquuqda bini'aadmiga iyadoo qaybka munaasabada xuska lixda ka soo wareegtay markii la asaasay lixaad ayaa waxaa munaasabadaasi lagu soo afbeeray dhowlatuusyo kala duwan oo ay soo bandhigeen ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Djibouti taas oo ciidamadu ka dhacday badda dhexdeeda oo maraakiibta ay leeyihiin howlgallada kala duwan ee ciidanka ilaalada xeebuhu ay ku soo bandhigeen dhowlatuuskaas ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wasiirka gaadiidka qalabeynta iyo sidoo kale mas'uuliyiintii sare ee iskugu timiday ee ka qayb gashay munaasabadaasi loo asteeyay in lagu xuso sanadka lixaad ee ka soo wareegay markii la asaasay ciidanka ilaalada xeebaha oo hawlihiisu ay yihiin in ay sugaan guud ahaan ammaanka badaha jamhuuriyadda Djibouti wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxaa shalay oo ka dhaqaajiyay dugsiga loo yaqaano hoteliye dhaqtaa ee lagu barto xagga ka shaqeynta hoteelada hawlihii oo kulan lagu talagalay qiimeyn iyo isku dhaf ah oo lagu qorsheynayo waxqabadka guud ee wasaaradda madaxa ka yahay wasiirkaasi tan iyo 2014 ilaa 2016 waxaana ka qayb qaaday kulankaasi xog isweydaarsiga ah wakiilada sida aadka iskugu dhow yihiin ee iskaashiga leh wasaaraddaasi iyo hay'adaha kale ee wada shaqeynta buuxda ay ka dhaxayso wasaaradda kuwaas oo muddo 2 maalmo ah ka wada hadlayay waxqabadkan wasaaraddaasi muddada 3 sano ee la soo dhaafay waxaana
qayb ka ahayd horumarinta iyo iskaashiga hay'adaha si ay la wadaagaan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha iyo sidii loo xoojin lahaa waxbarashada guud wakiilka hay'adda UNICEF ee Djibouti Janabu Mahandi ayaa ka hadashay kulankaas waxa ay mar kale sheegtay rabitaanka taageerada wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee ku aadan hay'adaasi ay wakiilka u tahay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi uu yahay mid wada tashi ah oo dan u ah wasaaradda iyo qaybaha kale ee hay'adaha ay iskaashiga buuxa la wadaagto wasaaraddaasi waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxa aan qiimeyn gaar ah ku sameynaynaa buuri guud ahaan 3 sano ee wasaaraddaasi ugu dambeeyay iyo waxqabadkeygii taas oo sidoo kale la meel marinayay burdaraashado kala duwan oo lagu talagalay 2017 ilaa iyo 2019 oo wasaaraddaasi waxqabadkeega loogu talagalay mas-uuliyiinta kale ee ka qayb qaatay ayaynu ka wareysanay shirkaasi ka dhacay lycée d'Hôtelier waxaana ka mid ah Idris Yusuf isku duwaha UNESCO waxaana hadaladiis ka mid ah shirkan maanta ka bilaabmay magaalada Carta ee uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada iyo farsamada gacantu waxa uu ku saleeyahay yoolkii qaabkii loo dhigay in 3 sano ee tagay wasaaradda tacliinta wax loogu qaban lahaa 2014 2016 taasoo iminka gabagaba joogta marka in la isweydiiyo wixii qabsoomay wixii suurta galay iyo inta hadhay muhiimka halkan la isugu yimid ama la isku afkartay iminka shirarka loo galayo maanta iyo bari waxa sal oo ah in la isla fahmo wixii qabsoomay waa qabsoomay laakiin intii hadhay maxay u hadhay maxaa hakiyay sidee xal loogu heli karayaa inta marka la isla helo waxay fasaxaysaa in la diyaariyo yoolka 3 sano ee soo socda munaasabad ballaaran oo loogu talagalay daahfurka duulimaadka dayuuradda Air Djibouti ee isku xidha Djibouti iyo Dirdaba Djibouti ayaa ka dhacay garoonka dayuuradaha ee magaalada Dirdaba xafladda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka qayb qaatay mas'uuliyiinta Air Djibouti iyo maamulka Dirdaba Maka Cabdi ayaa ka mid ahayd wariyaasha shalay ka qayb galay xafladda daahfurka duulimaadka Air Djibouti ee khadka Djibouti iyo Dirdaba ee ka dhacay garoonka Dirdaba warbixintan ayayna inaga soo diyaarisay guddoon wacan waxaan ku sugannahay garoonka caalamiga ah ee magaalada madaxda ee Djibouti halkani ayaa waxa ka anbabaxaysa diyaaradii ugu horeysay ee Air Djibouti waxaan ka mid nahay rakaabkii ugu horeeyay ee ka faa'iideysta duulimaadka Air Djibouti ee taaka aan isku diyaarinayno socdaalka aan ku gaari doono magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia waana duulimaadka ugu horeeyay ay ku furi doonto socdaaladeeda kala duwan ee ay ku gaala bixin doonto Djibouti iyo Dirdaba waxa xusid mudan in dib ay u cusboonaysiisay hawlaheega shaqo diyaaradda Air Djibouti wadhawaanta ee uu qodobka ka jiray madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geele dhaqaalaha dalkeenuna ma dhameystirna hadii ayna ku jirin horumar gaadiid oo xagga hawada iyo badda ah agabka kamina dhalinta siyaasaddaasi noocaas ah ayay Air Djibouti u tahay muuqaal nool kolkii ay ka duushay dayuuradani cusub ee Air Djibouti garoonka caalamiga ee Djibouti waxa saarnaa rakaab u socday magaalada Dirdaba ee dalkaasi Air Djibouti waa diyaarad aad u weyn oo markaasi qaadaysa rakaab badan oo ay qodobka uga jartay shalay socdaalkeegu koowaad ee ay u safri doonto magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia waxaana sidoo kale ay leedahay shaqaale kala duwan oo ku hawlan adeegga bulshada iyo ka jawaabidda baahiyada kala duwan ee rakaabka adeegsan doona Air Djibouti waxayna ku hawlnaayeen tilmaamaha kala duwan ee daruuriga ah ee ilaalinta amniga rakaabka kuwaas oo macna faahfaahsan ka bixinaya qaybaha kala duwan ee xeerasho yaal dayuuradaasi waxayna ku buurinayeen sidoo kale in diyaar ay u yihiin in si degdeg ah uga jawaabaan qaybaha baahiya ee rakaabka iyagoo kugu helinaya muddada aad ku guda jirto safarada kala duwan ee duulimaadyada Air Djibouti intii aan dhoofkaasi duulimaad ee Air Djibouti aan saarnayn wuxuu ahaa safar aad u cajiib badan isla markaana rakaabku aad u soo dhaweeyeen iyagoo wax tacab aan dareemin muddadaasi hawadan ku jirnay kolkii ay Air Djibouti ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia ayaa waxa halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay diyaaradaasi cusub ee Air Djibouti oo kala kulantay soo dhaweyn heer sare ah waxaana hortaba mas'uuliyiinta magaaladaasi iyo shaqaalaha kala duwan ee garoonkaasi lagu soo dhaweeyay biyo lagu rushay dayuuradaasi macnaheedu yahay soo dhaweyn kadib waxa halkaasi laga tumay music waxaana halkaasi ku sugnaa qunsulka guud ee Djibouti ee magaalada Dirdaba mudane aadan iyo mas'uuliyiin kale oo aan kala kulannay soo dhaweyn wanaagsan
hadda joognaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dirdhabe ee dalka Ethiopia waxaanan halkani aan ku soo gaadhnay waa diyaaradda cusub ee Air Djibouti soo dhaweyntaasi kadib waxaan gaadhnay xarunta munaasabadda qodobka jarka ee diyaaraddaasi Air Djibouti waxaana lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo hadallo kala duwan halkaasi laga jeediyay Dirdhabe waxay ka mid tahay magaalooyinka bulshada reer Djibouti ay aad u gaadhaan amba si aad ah ugu tiro badan yihiin run ahaantii waa laba ummadood oo walaal ah oo wadaagay xidhiidh kala duwan sidaas darteed waa daruuri in la hirgeliyo xidhiidh diyaaradeed oo qaran Air Djibouti waxay horey u ahayd mid hawlaheegii shaqo uu hakad u galay balse madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelo uu door biday in dib loo ambaqaado hawlahaasi dadaal weyn oo u galay dhaqaajinta iyo kamina dhalinta Air Djibouti ee cusub مسؤولك جود جيبوتي مقالة دردبة وهالكاسي خطبة كجدية وحى وهرتبة شيء إن وكفر حسية هي إن وكلق إن نقلق يبقاته مناسبة دني قضب كجركا إير جيبوتي سكحوليسي جيبوتي دردبة وحان كفر حسن هاي بوري دبو سعلين تا ديارة دني إير جيبوتي يهوليه جشقة وحنا فديدين دون تا سفرة لبضة ومضاد جيبوتي إثيوبيا waxay noqon doontaa buuri dayuuradani mid si dhaqso ah ku iman doonta magaaladani Dirdhabe xoojin doontana xiriirka labada dal iyo bulsho dhaqaaleentaba waxaan soo dhaweyn wanaagsan u rajeynayaa Air Djibouti iyo shaqaalaha iyo waliba rakaabkaani Air Djibouti munaasabadaasi qodobka jarka Air Djibouti ee magaalada Dirdhabe ayaa waxay u qabsoontay si wanaagsan horta waxa farxad noo ah in Air Djibouti oo horey halkan u iman jirto diyaarad jirtay iyo kubani jiray ahayd inay maanta hadana dib halkan uga bilowdo fasaxiisu xiriyay Dirdhabe iyo Djibouti saad waqtahay Dirdhabe iyo Djibouti dhaqdhaqaaqa dadkaynu u badan yahay waana loo baahnaa inay diyaaradii Air Djibouti oo magacii Djibouti wadatay inay halkan timaado farxad weyn bay u tahay ummadda reer Djiboutina fursad weyn bay u tahay iyo ummadaha kale ee halkan joogaba fursad weyn bay u tahay in uu kubani kale oo jiri awal oo magacii Djibouti sitay inuu maanta ku soo biiro maaragtay kubaniyada maaragtay diyaaradaha ee imanaya halkan airport kulleeyde intay qaadayso waxa iga garanaya mas'uuliyiintan Air Djibouti ba garanaysa laakiin anu waxaan leeyahay waa diyaarad weyn waa loo baahan yahay wax weeyaan kulleey magaalada Dirdhabe waxay ku socotaa magaalo ma garanaysaa degmadan magaalada Dirdhabe iyo degmadeeduba meel waxay ku socdaan warshadeynta iyo leeso waxyaalo badan laga furayo tareenka soo biiray diyaaradda soo biirtay dariiqa soo biiray intaaba waa loo wada baahan yahay horta aad baad u mahadsantiin aad maanta khushuucdayda aad bay u kacsantahay maanta waxaan madaarkii ka arkay diyaarado badan oo wada cascas oo ay ku taalo cawshayadii mustareex baa noqday kuwa weyn ku yaro meeshii yaal waxaan arkayaa maanta talaabada in waxaan iicad madaxweynuhu halkii uu ka qaaday ilaa bariga inuu ka daba hadhin maantana waka mura ka dhaliyay beertiisii uuna soo dhaway waxaan kugu sheegayaa waxaan arkayaa talaabada maanta dhaqaaqday tu joogsanaysa ma ahayn oo tu soconaysay tahay dhaqaale badan iyo leese maxaan ku radaa relation xoog leh oo dalka antagana ka dhacayna aad bay u dhibaato qabeen dadku dhibaatadaana maanta alxamdulillah waxaan arkayaa inay Hargeysa haato Dirdhabe haato meesha doonto laga wada furtay dhaqaalowna inuu baaci mustariguna sidaa ka sii dhaqaaqi ma arkayaa maanta anu waxaan lahay oo salaamaya inta la shaqaysa madaxweynaha iyo madaxweynuhu maanta talaabada ay qaadeen insha Allah intii hore u socotay inay noqoto waxaan ugu yeedhaynaa qof kasta oo reer Djibouti ah oo farankiisa u hura u leeyahay raacana ama ku dhaafay Air Djibouti waa lacag gacanta bidixdu siisay gacanta midig iyadoo aan ogsoonahay in qaar ka mid ah bulshada reer Djibouti ay tagaan magaaladaasi xilliga kulaylaha waxaan ku suganahay gudaha dayuuradda Air Djibouti run ahaantii sidaad ku arkaysaan sawiradan daawadayaal Air Djibouti waa dayuurad aad u weyn oo aad u qurxoon waxaana ay leedahay shaqaale kala duwan oo markaas iyagu ku hawlan adeega kala duwan ee rakaabka haddaba mid ka mid ah rakaabka Air Djibouti oo hadda saaran ayaan jeclay in aan dareenkiisa wax ka weydiiyo horta waxaan farxadeedu aad bay u wacan tahay aad bay u sareysaa waa markii horeysay Air Djibouti aan raaco aan ahaantayda oon ka faa'iideyso fursadana oo Dirdhabe tagtay alxamdulillah
meelaha kale ay tagaysana insha Allah taala waan tagi doonaa tartanka anaga isku hayna shaqaalaheena hadii la wanaajiyo imka saan u arkayo diyaaradda dhexdeedu aad bay wacan tahay diyaaradaha kale la dhigmata shaqaale aad u firfircoon bay leedahay oo soo dhaweyn leh waxaan u maleeyaa in ay sidaan imka arkaynaba diyaaradihii kala qiimahooda hoos u dhigay waxaan arkaynaa in tartan galisay in ay reer Djibouti dadkii nacam jeebkoodu u fasixi lahayn diyaarad raacaan maanta ay raaci karayaan dirraban ay ku raaci karayaan sida la ii sheegayo $100 baa lagu leeyahay alxamdulillah waxaan leenahay deyntaasi in ka fiican inaan heli doono adduunkan inaan qabsan doonaan u maleeyaa intaas daawadayaal waxaa ku idil socdaalkii aan ku gaadhnay magaalada Dirdaba halkaasi oo aan qodobka kaga soo jirnay heer duulimaadkii amba safarkii ugu horeeyay ee Djibouti ay ku timid magaalada Dirdaba isla wararka dalka oo daawadayaal gudoomiyaha dalada guud ee xiriirka Afrika ee ciyaarta loo yaqaano tenniska Tariq Sharif ayaa booqasho ku jooga Jamhuuriyadda Djibouti waxaana uu ka qayb galay munaasabadda furitaanka tartanka caalamiga ee gabdhaha ee loogu talagalay ciyaarta tenniska oo ka dhacaya Jamhuuriyadda Djibouti waxaa xafiiskiisa ku qaabilay xogeeye dowladda dhalinta iyo ciyaaraha oo ay ka wada hadleen horumarinta tartanada tenniska Jamhuuriyadda Djibouti RTD ayaa haddaba waraysi la yeelatay gudoomiyaha xiriirkaasi ee kubadda tenniska loo yaqaano Maxamuud Ismaan Bulxanna waxa uu noo soo eegay waraysigaasi sida uu dhacay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko horumarka uu gaaray dalka Djibouti dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waliba kor u qaadida ciyaaraha xiriirka kubadda gacanta ee tenniska ee dalka Djibouti si wanaagsan ay halkan igu soo dhaweeyeen waxaan ka wada hadalnay sidii kor loogu qaadi lahaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tenniska waxa ay diyaar u yihiin xukuumadda Djibouti iyo xiriirka tenniska waxaa ka go'an sidii kor loogu qaadi lahaa tenniska waana mid ka qayb qaadanaysa doonta horumarka dalka uu ka gaaray tenniska waa mid ciyaar kali lagu ciyaaro waa ciyaar ka qayb qaadanaysa nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada marka shirkado ay yimaadaan waxay ka qayb qaadan doontaa inay maalgelin ku sameeyaan ciyaarta tenniska kor ayayna u soo qaadi doonaan waana mustaqbalka dal walba uu leeyahay qaasatan wadamada Afrika haddii aan ka hadlo Afrika waxa ay u baahan tahay dhalinyaro wanaagsan oo jecel ciyaarta tenniska oo ka qayb qaadanaysa horumarka dalka ka jira midka tenniska iyo waliba midka kale ee sportiga walaalkay Xumad gudoomiyaha xiriirka ciyaarta tenniska waxa uu ka shaqeeyaa sidii kor loogu qaadi lahaa tenniska isaga iyo dhammaan asxaabta kale waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa tenniska Djibouti ciyaaraha tenniska waxa ay noqdaan ciyaaro aad loogu xiran yahay oo dad badan ay daawadaan ayna xiiseeyaan waxa loo baahan yahay in hibada dhalinyarada la soo bandhigo waxayna dhalinyarada ku dhex jiraan bulshada ciyaarihii Olombikada ee ka dhacay Rio de Janeiro dalka Brazil waxa ay heshay bilado badan qaaradda Afrika oo ka mid ah ciyaarihii kaliga loo ciyaaray waa inaan si wadna taageerada aan la garab joogno dhalinyaradeenna kuwa ciyaaraha isku duubnida loo ciyaaro maaha inaan ilowno ciyaarta kali loo ciyaaro ay ka mid tahay ciyaarta tenniska kulan wada tashi iyo araa isweydaarsi ayaa waxa uu dhex maray mas'uuliyiinta xoghaynta dawladda dhalinta ee ciyaaraha iyo kuwa gobolada dalka gudihiisa kulankaas ayaa waxa uu ka dhacay xarunta ciyaaraha ee magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix waxaana u joogay Superprefect gobolka Cali Sabiix Maxamed Xumad Abbas gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Cali Sabiix Umar Ahmed Wacays mas'uuliyiinta xoghaynta dawladda oo qaabilsan ee ciyaaraha ee gobolada dalka gudihiisa Cabdi Sow Cusmaan iyo waliba xubnaha ururka ciyaaraha ee gobolada dalka gudihiisa ujeedka ka dambeeyay kulankaas ayaa waxa uu yahay dardargelinta ciyaaraha gobolada dalka gudihiisa taas oo hormuud ka tahay xoghaynta dawladda dhalinta iyo sportiga waxaana xoghayntu ay ugu tala gashay in dhalintaasi gobolada dalka gudihiisa la siiyo fursado ay ku soo baxaan oo ay ku soo bandhigaan ciyaarahooda gaar ahaan xagga talanga ay u leeyihiin ciyaaraha kala duwan wararka caalamkana waxaan idinka haynaa gaar ahaan qaaradan Afrika madaxda Afrika ayaa wali ku raaridin in madaxweynaha dalka Gambia uu iskaga tago xilka xilli xiisada siyaasadeed ee dalkaasi si xumaanayso madaxweynaha Gambia waxa uu mar hore u ogolaaday natiijada doorashada lagaga guuleystay hase yeeshee go'aanka dib ayuu u beeniyay Maxamuud Cusmaan ayaa faallaynta ka badan noo haya wafdi ka kooban madaxda Afrika ayaa soo gaaray dalka Gambia waxaana hogaaminaya madaxweynaha Liberia Alan Johnson waxaana isku dayeen inay ku qanciyaan madaxweynaha Gambia Yahya Jammeh inuu xilka isaga tago madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh ayaa sheegay markii hore in laga guuleystay halka markii dambe uu sheegay inaan laga guuleysan doorashadii ka dhacday dalkiisa laakiin wafdigan ayaa isku dayay inay ku qanciyaan inuu isaga tago xilka oo la shaqeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay Adam Barrow booliska ayaa xiray xafiisyada guddiga doorashada ee madax bannaan ee dalka Gambia EAC magacooda loo soo gaabiyo
ka hor inta ay iman wafdiga gudoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan ee dalka Gambia ayaa sheegay in la aqbalo guusha uu gaaray Aadan Barrow doorashadii madaxtinimada dalkaasi ka dhacday beesha caalamka ayaa fursad ku tilmaamtay booqashada wafdiga madaxda Afrika waxaana ay sheegeen in ay noqon doonto mid laga miro dhaliyo isla markaana Yaya Jammeh uu aqbalo doorashadii ka dhacday dalkaasi wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha Liberia Ellen Johnson ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari iyo madaxweynaha Sierra Leone iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Afrika wafdigan ayaa waxa ay la kulmi doonaan madaxweynaha xilku ka dhamaanayo ee Yaya Jammeh waxay sidoo kale la kulmi doonaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi Aadan Barrow ugu dambeynna dalka Syria waxaa la filayaa in la gaaro go'aan suuragelaya xabad joojin ka dhaqan gasha magaalada dagaaladu ay burburiyeen ee Xalab Maxamuud Cusmaan iyo mar kale tis cusub oo lagu sheegay in lagu daadgurayn doono dagaalyahanada falagada Suuriya iyo dadka rayidka ee ku dhaqan magaalada bariga ee Xalab ee dalka Suuriya ayaa lagu wadaa inuu ka dhaqan galo saacadaha soo socda oo haddii ay aqbalaan dhammaan dhinacyada isku haya colaadda ka tagan dalka Suuriya falagada ayaa sheegtay in shacabka iyo dhammaan dagaalyahanada la filaya inay bilaabaan inay isaga baxaan bariga magaalada Xalab walow aan weli arrinkaasi laga xaqiijin dawladda Suuriya iyo xulufadooda dalka Ruushka nageynta intaan ku wada kulmi doono wararkan war lamida aniga iyo saaxiibkii Naasir Cumar waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo